haddaba qodobada barnaamijka saakay aanu idinkugu soo gudbanayno waxaa ka mid ah reer galbeedka oo si weyn uga yaaban heshiis taariikhi lagu sheegay oo dhex maray ruushka iyo iiraan kaasoo galinkii dambe shalay ay kala saxeexdeen madaxweynaha ruushka iyo madaxweynaha waddanka iiraan. waxaa sidoo kale barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonaa maamulka falastiiniyiinta ayaa arrin lala yaabay ka sameeyey daanta galbeed kadib markii la sheegay dadka falastiiniyiinta ee halkaa jooga inay markaa iyagu ay samaynayeen mudaaharaad ay markaasi ku taageerayaan gaza iyo guusha ay gaartay. haddaba waxay yidhaahdeen halkan laguma dabaaldegi karo, iyagiyo maamulkii falastiiniyiinta ah ayaa tallaabadaa qaadaya. waa sheeko cajiiba, barnaamijka ayaan iyana ku falanqayn doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijkaan idinkugu soo gudbin doonaa hogaamiyaha cusub ee suuriya oo telefoonka kula hadlay madaxweynaha imaaraadka iyagoo arrimo muhiima ka wada hadlay. sheekada ugu xiisaha badan, wasiirka arrimaha dibadda ee masar ayaa telefoonka kula hadlay dhiggiisa waddanka iiraan. wuxuu weydiistay in lala hadlo nimanka xuutiyiinta ee jooga badda cas maadaama heshiis laga dhaliyey gaza xaalku uu degan yahay in iyaguna badda ay furaan oo ay maraakiibta u oggolaadaan halkaa inay isaga gooshaan. masar ayaa la sheegay malaayiin dollar inay ku weysay dagaalka ka soconaya gaza iyo xuutiga sida uu u xiray baabal mandab. haddaba arrimahaas iyo wixii warar ee soo kordha ee kale intaan barnaamijka ku jirno ayaan idinla socodsiinayaa. waxaynu ku bilaabaynaa dowladaha reer galbeedka oo ugu horeeyo maraykanka ayaa la sheegay inay aad uga walaacsan yihiin heshiis lagu tilmaamay inuu ahaa mid taariikhi ah oo shalay gelinkii dambe magaalada moscow ay ku kala saxeexdeen madaxweynayaasha ruushka valadimir putin iyo iiraan mascuud bashkiyan. haddaba dhowr qaybood ayuu heshiisku ka koobnaa, arrimo badan oo ay ku jirto difaaca in la iska kaashado, taasoo welwel badan ku abuuraysay dowladaha reer galbeedka gaar ahaan maraykanka oo markii hore islahaa iiraanna keligeed meel ku hay ruushana meel ku hay. laakiin hadda waxaa muuqata ninka la yidhaha valadimir putin inuu la ciyaarayo reer galbeedka ciyaar la yaab leh. heshiiskan mid ka horreeyey wuxuu la soo saxeexday hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un oo ah jeegaxiirka ayuu la soo saxeexday. haddana wuxuu la saxeexday iiraan, chineska iyo qolooyin kalena waa u dhiman yihiin. intaas marka waxaa la iska kaashanayaa difaaca dal ka mid ah dalalkaasu haddii lasoo weeraro lagu xadgudbo in dalka kale uu difaaco. marka arrimahaasu marka tafaasiil badan ay u baahnaayeen, waa laga shaqaynayay muddooyinkan. hadda waxaa leeyahay inta badan waa la xaqiijiyey oo waa la saxiixay. qaybo kalaa dhiman, iyaguna waa la dhammaystiri doonaa. kadibna wuxuu abuuri doonaa ninka la yidhaahdo valadimir putin neeta cusub oo maaragtay ka hor timaada neetada reer galbeedka. marka waa isbahaysi cusubaa laga wadaa, macnaa uu markaa isdifaacayo dhaqaalaha wax walba ka sheekaysanaya. haddaba wararkii ugu dambeeyay arrinkaa waxaynu ka soo xiganaynaa telefishinka ruushku leeyahay ee la yidhaahdo RT ayaa saakay warbixin ka qoray. wuxuu leeyahay putin iyo bashkiyan waxay saxiixeen heshiis shuraako ah oo istaraatiiji ah oo dhammaystiran oo ballaaran kaasoo dhex maraya ruushka iyo iiraan. labada madaxweyne iiraan iyo ruushka valadimir putin iyo mascuud bashkiyan ayaa jimcihii gelinkii dambe ee shalay caasimadda ruushka ee moscow waxay ku saxiixeen heshiis wax wada qabsiya oo istaraatiiji ah oo dhammaystiran ayay halkaa ku saxiixeen. haddaba warbixinta way sii socotay. waxaa leeyahay mas-uuliyiinta heshiiska ay saxiixeen waxaa ku jira arrimo muhiima oo layska kaashanayo sida difaaca, ka hortagga argagixisada, tamarta, maaliyadda, isu socodka, isgaarsiinta, warshadaha, beeraha iyo dhaqanka iyo culunta tiknolojiyadda. waa arkaysaan marka intaas mashaariica ayaa la iska kaashanaya. marka waxaasoo kale dhan maaliyadda, la dagaalanka argagixisada waxaa dhib ma ku hayaan macallinka weyn iyo xertiis. iyagu waxaa dhib ku haya arrinta la leeyahay iskaashiga difaaca ayaa dhib ku haya. macallinka weyn sidiisaba wuxuu rabaa adduunyadan isaga iyo cid ka amar qaadata inay joogaan, wax asaga dhinaciisa ka hor iman kara ama maaragtay wax kale tallaabo kala qaadi kara ma ogola.
marka nimankan moor ay wadaan isbahaysigan inay sii wadaan oo ay mar walba dal ku soo daro Vladimir Putin wuxuu dib u abuuri doonaa gaashaanbuurtii Warsaw ee burburtay ee markii hore dhisnayd oo NATO iyo Warsaw ay ahaayeen marka hadda waxa leeyahay ninka Putin waa halista ugu weyn reer galbeedka waa in meesha laga saaraa markaa haddii kale wuxuu nagu abuurayaa sheeko la yaab leh isbahaysi kale iyo qolooyin kale oo aruurinaya marka hawshaas iyaduna halkaas ayay maraysaa waayahay qodobka kale ee barnaamijkeena aynu ku falanqaynayna waxa uu noqonayaa hogaamiyaha cusub ee Suuriya ninka la yiraahdo Ahmed al-Shara ayaa telefoonka wuxuu kula hadlay madaxweynaha waddanka Imaaraadka sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal sidii loo dhameystiri lahaa sidii waxyaabahaas waa iska caadi laakiin falanqeeyaashu meel kale ka fiiriyeen waxay yiraahdeen nimankan Turkida waa niman imtixaan ah oo khatar ah nimanka Suuriyaanka iyaga maaragtay siyaasadda ku hogaaminaya waxay yiraahdeen sharta bariga dhexe Imaaraadka iskala heshiye madaxa u salaax waa ku soo wacay madaxweynuhu maaragtay haddii kale lugooye iyo shirqool ima ka dhammaanays asagoon ku daynayn oo la og yahay inuu waddan kasta Imaaraadku inuu lugooye dhibaato ku qabto rabo haddana adigu iskala sii hadlayuusan idin eedin markaasaa ninkii al-Shara ahaa telefoonka ku raadiyay markaasuu yiri madaxweyne seetaay waa inaan cilaaqaadkii soo celino oo maaragtay iskaashi wax badan ka sameeyno waxa soo raba marka nimankan Suuriyaanka marka aaday marka u dadaalayaan wafuud ay u kala direen gobolka arrimo badan ay ka shaqeynayaan wax badan ay qabanayaan si wadankooda cunaqabateynaha iyo waxa saaran looga qaado hadda marka waxa leeyahay iskaashiga dawladaha Carabta iyo aad u fiican yahay marka ninka saasay marka muhiimadu waxay ahayd inay maaragtay wada hadleen haddaba aan idin soo warbixin laga qoray sheekadaas waxa leeyahay madaxweynaha Imaaraadka iyo hogaamiyaha cusub ee waddanka Suuriya ayaa wada hadlay waxayna ka hadleen xoojinta xiriirka labada waddan ayay ka hadleen oo marka arintaas halkaas ayay martay xalay waqti dambe golihii wasiirada oo dhameystiran ee Israa'iil ayaa ogolaaday awal waxay ahayd qolo leeyahay cabinetka oo 12 wasiir ah ayaa ogolaatay kadibna wuxuu isugu yeeray ninkii Netanyahu wasiiradii oo dhan iyaguna way wada fariisteen way wada aqbaleen heshiiskii marka labadii qayb oo uu golaha wasiirada ka koobnaaba way ogolaadeen marka hadda marka waxa socdo dadaaladii iyo sidii loo meel marin lahaa heshiiskaas ayaa socda maalinta axadana in marka hawshaasu ay si fiican u bilaabato oo maxaabiistii iyo wixii la isdhaafsado laakiin war la yaab laha soo baxaya maamulka Falastiiniyiinta ee u hogaamiyo Mahmoud Abbas ayaa dadkii ku noolaa daanta galbeed ee Falastiiniyiinta ahaa inay dabaaldegaan u diiday adduunkii oo dhan laga dabaaldegaa xataa London Ingiriiska Yurub Mareykanka New York waa aragteen meelo badan Carabta iska dhaaf Morocco meelo badan laga dabaaldegaa dadka dabaaldegay waxay u dabaaldegayaan dagaalka ka joogsaday Gaza iyo waliba dagaalka ha joogsaday guusha ay reer Gaza gaareen dhammaan heshiiska la gaaray wixii reer Gaza ay dalbadeen waa Israa'iil waxba way qaban weysay maxaabiistii way soo deysay weysay waxba way sameyn weysay marka way ku qasbanaatay inay tanaasul sameeyso yaa ku qasbay wiilasha muqaawamada ee jooga Gaza ayaa ku qasbay marka adduunkii oo dhan marka sidii ula tacaadufaya oo la safan oo dabaaldegaya markaasoo Mahmoud Abbas wuxuu leeyahay qof isu soo bixi kara oo Gaza iyo guusheeda ka hadli kara ma jirto Falastiiniyiintu marka waxay leeyihiin war ninkanu nin waalan miya muxuu rabay in nagta lagu sii hayo Gaza in la garaaco in laga adkaado in meesha laga qabsado muu rabay dadkan dabaaldegay muxuu ka rabaa isaga lama haystaan walaalahood Gaza jooga guusha ay gaareen iyo xabadii laga joojiyay iyo nabadii u soo noqonaysa ayay u mudaharaadayaan oo u dabaaldegayaan muxuu ka rabaa kaala sheeg adiga way yaabeen markaas warbaahintii oo dhan yaaban tahay haddaba marka aan idin tuso jirada la yiraahdo Ra'yul Yawm ayaa waxay ka qortay sheekadaas warbixin la yaab leh haddaba marka jiradu waxay su'aal ka dhigtay sababta uu u mamnuucay maamulka Falastiiniyiinta
ehelka ama dadka reer daanta galbeed inay dabaaldegaan oo heshiiskii xabad joojinta ee Gaza u dabaaldegaan sababtu maxay tahay muxuu u mamnuucay dabaaldegyadaas fiiri dabaaldegyada sababta loo mamnuucay jiradda way qoraysa ciwaan uga dhig maxaa loo mamnuucay wax la yaab lala yaabo waay ninkan Maxamuud Cabbaas laleeyahay waa ka soo daraa laleeyahay nacaybka uu dadka reer Gaza u qaba miyaa mise muqaawamada marka dadka wax falanqeynaya niman martay aad active ah ku jira waxay leeyihiin ninkanu muqaawamo ma maqli karo waa nimanka hadda kula dagaalaya daanta galbeed oo dhalinyarada ku abuuray oo nagta laga saaraya marka wuxuu isleeyahay dadkii ku noolaa daanta galbeed hadday maqlaan muqaawamadii Gaza guuleysatay oo Israa'iishii weyneed ka adkaatay kuwanuna rajaa galayso dadkii niyada ayaa muqaawamadu ka jeclaanayaan marka si aysan u jeclaanin marka waa inaad ka hortagtaan marka waxay leeyihiin laakiin dadka oo la caburiyo oo laga hortago waxa ay aaminsan yihiin qulubtooda ma laga saari karaa maya dadkan waxay aaminsan yihiin muqaawama waxay aaminsan yihiin muqaawamadu inuu sharafkoodu yahay in karaamadooda tahay wixii dhimana ha dhintay laakiin inta soo harta cizi iyo sharaf marka dambe inay ku noolaanayaan laakiin Maxamuud Cabbaas iyo kooxdiisa in la isu dhiibo Israa'iil wax maartay shaqayna maahanile haddaba fakari aragti waxa adinkuna arrinkaa ka qabtaan noo soo qora si aan maartay fakarkiina aragtidiina inaguna aan u aragno